السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta. Muuqaalkan waxay kaga hadli doonaa ama aynu ku sharxi doonaa sida loo soo gashado post free ah ama article free ah. Post ama article ama contents waa wax isku mid ah oo isku magacuna. Markaa sida loo soo gashado free articles ama free post ayaynu muuqaalkan kaga hadli doonaa, weliba si qoto dheer baan uga hadli doonaa insha Allah. Ugu horreyn waxaan isticmaali doonaa tool la yiraahdo H-Super tool la yiraahdo ayaan isticmaali doonaa. Mid kale ayaa jira isaguna oo la yiraahdo Papertype. Way badan yihiin laakiin ka labaad aan isla haysana ka soo hadal waa Papertype mid la yiraahdo Detail mid la yiraahdo ayaan doonay isagana sida loogu diyaariyo professional article sida loogu diyaariyo isagana aan ku soo diyaarin doonaa. Kana hadda waan ku diyaarin doonaa professional post. Okay, hadda saynu muuqaalkan u galno waxaanu ka bilaabi doonaa insha Allah. Google-ka ayaad soo furi doontaa, kadib search-kiisa waxaad ku soo qortaa H-Super tool ku soo qor. H-Super tool oo soo qormaysa ayaad ku soo qoraysaa Google-ka. Okay, marka saa ugu soo qortid waa kan u horeeya H-Super tool ku qoran tahay. Runtii waa tool aad iyo aad u fiican xagga inaad ku diyaarsato post ama inaad ku diyaarsato headlines fara badan ama titles inaad ku diyaarsato. waa tool yacni aan oran karo waxyaalo fara badan ayaa ku jira. Okay, ugu horreyn marka kugu soo kaco waxaad samayn doontaa desktop ayaan ka dhiganaa hadda oo si uu screen-ku noogu yar kala baxo. Okay, hadda waa inoo kala baxay san ayuu kugu soo bixi doonaa. Hadduna san kugu soo bixin marka horeysa sign up soo dhe kadibna soo geli email-kaaga waa iska fudud yahay kadibna si free ayuu ku keeni doonaa page-kani. Waa uu badan yahay tool-kani waxyaalaha uu sharxayo. Marka inta ugu muhiimsan ay hadda soo qaadan doonaa mar ayaan tool-kan si fiican u dul mari doonaa oo muuqaalo badan ayaan ka samayn doonaa insha Allah. Hadda laakiin sida aynu article ugu diyaarsan lahayn ama post free ayaynu u gada geli doonaa. Okay, waxaan isticmaali doonaa ugu horreyn qaybtan ku qorantay free CIO tools wixii ku saabsan CIO toolska ama search engine optimization-ka wixii ku saabsan. Okay, waxa isweydiin lahaa hadaba post-ga halkaad ka bilaabaysa. Markaad u baahan tahay inaad post qorto ama aad qorto article ama contents waxa la yiraahdo aad qorto waxaad u baahan tahay meel aad ka bilowdo. Ugu horreyn waxaad ka bilaabi doontaa waxa isweydiinaysaa waxa ugu horeeya waxa weeyaan maxaad ka hadashaa ama qodob noociya ayaad soo gelisaa oo post noociya soo gelisaa. Ugu horreyn intaadan tool-kan ba furanin waa khasab inaad niyada ku haysato waxa aad doonayso inaad soo gudbiso. Tusaale waxaad doonaysaa inaad soo gudbiso what is digital marketing, what is freelancing, what is Google AdSense, what is blogger, what is WordPress. waxbaad doonaysaa inaad soo gudbiso. Waxaad doonaysaa inaad soo gudbiso marka hore wax khasab inaad maskaxdaada aad ku soo qorato oo aad ka soo fikirto macnaha marka ugu horeysa. Okay, markaad soo hesho title-kii oo aadan laakiin garanay title-kan sanad u qoraysaa inay tahay si saxsan iyo ahayn inay tahay mid Google-ka laga heli karo oo Google-ka inta badan laga raadiyo inay wax ka yar khaldan yihiin oo weerarada istaba marinayso ayaa isweydiin leh. Kolka ugu horreyn halkaas insaxana waxaan imananaa meesha ku qoran tahay question explorer waa meesha dadka wuxuu sheegayo xogta dadka isweydiiya dadka su'aalaha weydiiya Google-ka dadka su'aalaha ugu badan Google-ka weydiiya. Kolka title-keena ayaynu eegi doonaa su'aalaha laga weydiiyo Google-ka. Hadda waxaan adeegsan doonaa title freelance ma ku saabsanaan doona waa tusaale. Laakiin haddii aad ka hadlaysid wax aan freelancing-ka iyo waxyaalaha common-ka English ku qoran la garanayo aan ahayn sida tusaale wararka ama warar aad soo gelinayso ama waxyaalaha af Soomaali aad ku qorayso soo gelinayso kaas wax khasaba inaad caad u qorto headline-ka soo diyaarsato warka maanta kadibna warkii maanta aad qorto kaas wax khasab waa muhiim inaad caad u qortaa waayo kuma qori kara injineedani inta badan ma dareemaan maraan arag artificial intelligence qoraya af Soomaali. Marka ugu horreyn qodobkeenii ahaa sidaynu u ogaanaa title-ka inuu wadano inuu yahay mid la raadiyo. Waxaad iman doontaa meesha file-kan ayaad waxaad soo furan doontaa waxaad soo furi doontaa qaybtan ku qoranta free question explorer qaybta tool-ka. Hadda weliba qaybtan waxaan ka dhigi doonaa iyadana desktop baan ka dhigi doonaa. Kolka mar walba wuxuu kuu furi doonaa tab cusub oo aad doorato meel cusub. Hadda tab-tii hore taasi tab-tii labaad xaggan hoose sadarkiisa wata inoo furantay tii hore tan wata. Okay, haddaba waxaanu doonaynaa in title-keena aynu kaga hadalno freelancing-ka ama waxa la yiraahdo freelancing.
okay meesha search inta ku beegan ayaan imananaa kadib waxaa ka horeysanaysa u taabananaa meeshaasi ayay ku qoran tahay kolka freelancing baan ku qoranaa marka ha qorin what is freelancing what is a freelancer how work is freelancer waxa ha qorin adiga freelancer kaliya ta soo qor ama mowduucaad ka hadlaso intiisa ugu muhiimsan soo qaado haddii kaleeto si fiican kugu soo qaban maayo laakiin marka muhiimka soo qabato ayuu deetan ka dhex baarayaa google-ka waxa laga weydiiyo ama sida loo qoro okay waxaan ku qoranaa freelancing ayaan ku soo qoranaa marka qodobkaad ka hadlaso si yar kooban u soo qor hadaad ka hadlaso tusaale what is Google AdSense kaliya ku soo qor hadaad ka hadlaso what is blogger kaliya ku soo qor kolkaas saas ay aad ugu fiican tahay inaad ku soo qortaa okay markuu saa kuu soo saaro waxooga labada faro isticmaal iska foge kadibna search ayaan ku dhufanaa oo dhinacana kolka hadda isaga inoo saar doona su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo inta ugu badan YouTube la weydiiyaa kolkaas uu qoran yahay inoo soo saar doona hadda laba farood baan adeegsanaya waan soo dhaweysanayaa shaashada dad computer isticmaalasa waa good hadda waxyaalaha la qoro waxa kamid ah what freelancing what is lama qorin ma arkaysa meelaha la doonayo inaad iska ilaaliso what is lama qorin laakiin waxa la qoray what freelancing ama what freelancing is all about waxyaalahaas la qoraa oo ah su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo oo ku saabsan what hadda meeshan waxa ku qoran what kaliya wixii what ku saabsan oo dhan waa kuwaas ugu badan wixii Google iyo la weydiiyay aan YouTube wixii YouTube la weydiiyana wax Google la weydiiyay kolkaata ugu muhiimsan istiraahay taas ugu qurux badan ama taas ugu faniisan ama taas aan ay mawduuca ku soo baxay inaad kaga hadasho ay qaadanayso meesha ka hooseysa waxa ku qoran wixii when ku saabsan when freelancing started xilma u bilaabmay when freelancing how do I waxaas oo dhan meesha ku qoran when freelancing started in Pakistan waxaas ku qoran meesha kolka taa u horeyso kale waa muhiim oo waxyaalaha qaadan karaysi halkan waa where oo xilma hadaba kala ku ugu muhiimsan isticmaal doona iyaga waxa kamid ah how questionska oo ka ah how to find freelancing jobs waa su'aalaha ugu muhiimsan how to find freelancing jobs marka waxaan sameyn doonaa waxaan qaadi doonaa title-keena oo ama halkan title-ka macnaheemka imika halka marka waxa weeye inaad fahanto meeshan waxaan u nimid si aan u helno title hadaba si aan u helno title-ka in ku bilaabi lahayn hadaba laba title ayaynu qaadan doonaa wayda uma baahnin kan ugu horeeya what ayaynu insha Allah mid ka qaadan doonaa what freelancing ayaynu deetana adeegsan doonaa howda iyo inta ugu badan waxa la weydiiyaa iyo what wax ku saabsan baa la weydiiyaa inta badan Google-ka marka hadda waxaan iska qaadanaa ka ay ku qoran tahay what freelancing baan iska qaadanaa ka sare labada ayaan qaadanaa what copy-sanaysa marka inta soo waxiso kadibna copy baan odhanayaa marka soo furo blogger-kaaga soo furo oo tab cusub ku soo furo marka tab cusub halkaas laga furtaa marka uu kugu warsaa datayna oo tab-kan marka kan ku soo dhufto kana baa new tab ku furaya marka blasta ku soo dhufo iyago okay hadda waxaan soo furay blogger-kii marka blogger-kiga new post ayaa waxa ku soo dhufanay qaybta ay ku qoran tahay post marka ku soo dhufto waxaan odhanayaa blasta aan ku dhufanayaa sam post cusub soo geliyo ama article okay title-kii waan soo helnay copy ayaan ku sidanaa halkan ayaan ku paste gareynaa what freelancing ayaynu ku soo paste gareynaa meesha markaasi halkaas calaamad su'aal ayaa la iska daba dhigay maadaama ay su'aal tahay what freelancing ayaan halkaas soo dhiganay okay what freelancing ma doonaa hadaba inaan ka sameyno article ama maqaal qoran oo qurux badan ka sameynay u baahnaay isla tool-keenan ayaan ku noqon doonaa oo inooga sameyn doonaa okay isagoo halka ku taagan ku soo laabo tool-kaaga qaybtan maaha qaybtii hore qaybtan dhexaad in ku soo laabano wuxuuna keeni doonaa meesha in ku diyaarsanay questions waana iska xiri kartaa laakiin iska wanaagsan tu kala iska soo furay tii hore inaad tagto okay marka halka timaado waxaan diyaarsanay title-keeni hadaba waxa isweydiin la title-keenani ma yahay mid Google-ku uu ku bixiyo lacag wanaagsan ama ma yahay mid bishii la raadiyo ugu yaraan ay raadiyaan dad 500 600 700 400 ugu yaraan ilaa 300 ugu yaraan in dad ay raadiyaan yani tira inta leeg si uu ogaana hadaba in title-keena la raadiyo waxaan ku dhufanaa qaybta ku qorantay bulk keyword tool bay ku dhufan doonaa okay marka ku soo dhufatid ani hadda waxay oranaysaa sign in de marka sign in baa la iska raahdaa maadaama soo samaysatay hore u soo samaysatay
okay sign in marka sign in tiraahdo isaga si toos ah kuugu soo kicinaya. Okay marka halkan kuu soo baxdo iyana desktop baan ka dhiganaa. mar walba desktop ay ku qurux badan tahay oo si fiican u arkaysaa. meeshaas aan ku dhufanay desktop site. Okay desktop la iga dhigay. hadda meeshaan u soconaa waxa weeyaan in title-keenu uu yahay mid bal la raadiyo inuu yahay mid aan laba raadin, oo halkan ay noo kala cadeyn doontaa iyo dadka ku tartamaya. muhiimadda raadinta waynu ogaano, waynu soo helnay oo hore ayaynu usoo aragnay, laakiin tan raadintana way noo sheegayaa dadka ku tartamaya ee weydiiya xagga calaamad su-aasha. markaasi marka hore waan ka nimid koobigan la socotay ahayd calaamad su-aasha daba dhig. markaasi halkaa kusoo koobi, halkaa kusoo bastigare aan xajiyey keyword ku qoran tahay. okay marka halkaa kusoo bastigarisid get data dheh oo meeshan yar ku dhufo get data ku qoran tahay. hadduu robot yar kusoo dhigayo not robot dheh. okay wuxuu noo sheegi doonaa korka xogtiisa ayuu siin doonaa. meeshan hoose ayaad imanaysaa meesha data resale kugu soo qoray. okay bishii waxaa raadiya fursadaha meeshan waa meel aad u wanaagsan oo sirteeda inaad fahamtay ay aad u fiican tahay. what freelancing waxaa raadiya bishii waxaa raadiya dad gaaraya 7,000 4,700 dad gaaraya oo per month 4,700 dad gaaraya. xaggan haddaan soo kacno paid competition-ka waxa weeyaan dadka soo upload gareeyay ee soo geliyay internetka ama inta kelmadda isticmaali soo geliyay waa low, weli way yaryihiin. meeshani waa aad bay muhiim u tahay inaad fahantaa. hadday hay tahay ma wanaagsana, kuma wanaagsan website-kaaga maadaama curdin yahay oo uu bilaamayo. haddii website-kaaga curdin yahay, haddii website-kaaga waqti dheer soo jiro waa okay, laakiin haddii uu yahay mid curdina oo hadda bilaamaya ama ayaan hadda bilaamay meeshani adiga kuma wanaagsana inay hay ahaato. medium-ka iyo waxa wanaagsan iyo low, weliba lowga ugu si fiican. lowga macnaheedu waxa weeyaan dad badani kelmaddan may soo gelin oo yacni website-yo fara badan may soo gelin. laakiin haddii website-yo fara badan hadday soo geliyaan waxay ka dhigan tahay inaadan tartanka aanad la geli karin maadaama iska tahay website-ka uu bilow yahay. okay cost per click-kiisuna waa good weeye 18 cent weeye. okay halkaas way noo sheegtay, toolkaas wuxuu noo sheegay inuu low yahay oo muhiimad in ka doonanay iyo dadka raadiya. okay halkaa back baan iska soo odhanaya. hadda waan iska soo noqonaya qaybta toolka waan ka soo noqonaya soo qaybta hore igu celiyo. hadda waynu soo ogaanay title-kiina waan siinaa. waxaan doonaa hadda title-ki inaynu ka qorno ii sheegay article inaan ka sameyno. hadda si aad article uga sameyso kor u jiid, soo dhaaf qaybta ay ku qoran tahay free email marketing, soo dhaaf kan discovery-ga, soo dhaaf meeshan ayaan imanana ay ku qoran tahay free AI tools oo loo soo gaabiyo free artificial intelligence. okay kolka robot macnaha guud haddaynu eegno robot baa kuu qoraya article-keeda aad qori lahayd. okay kan ayaynu isticmaali doonaa si aynu usoo saarnay si aynu u qorro article-kii ku saabsanaa title-keena. okay kan ayaad ku dhufanaysaa toolkan ay ku qoran tahay free AI writer-kii qoran tahay. okay san ayuu kugu soo baxayaa. markuu san kugu soo kaco waxaad samayn doontaa meeshan words-ka waxa hoose waxaad ka dhigan doontaa inta ugu badan isi baad odhan doontaa. kana 3 ilaa 4 hadda ka dhigato. okay 3 baan hadda isaga diisananaa. kelmaddii aynu wadanay ama title-keenii ayaa halkaas sare kusoo paste garaynana generate ka sareysa. marka hadda haddii kelmadu dib kaaga yar noqdaan iska yar fiiri saa u soo celi. keyboard-ka waxoogaa soo kackaca marka qaybtan. okay generate ma hadda ku dhufananaa. wuxuu ina siin doonaa article free ah oo uu ka sameyn doono title-keena. okay waxoogaa waan yar suganaa. waa kan ayuu noo diyaariyey. waxaa meesha yar sometimes waxaa sare soo raacaya kelmad yar marka maadaama qorayo waxa uu qorayo robot intaas waa iska masixi doonaa. laakiin freelancing is a great way to was freelancing-kiibu sharaxaya. wuxuuna siiyey 62 words bina siiyey. haddii u baahana waan ku ceshan karnaa. haddii ayna qancin ama ay weeruhu nagu yaraadaan waan ku ceshanaynaa. waxaan odhanaa generate again. mar kale ayay generate odhananaa. marka hadda mar labaad buu inoogu celinaya waan eeganaa. okay wuxuuna siiyey hadda kelmadihii buu inoo kordhiyey. hadda intii hore say u qornayd slack buu inoogu qoray kelmadihii buu inoo kordhiyey. markaas waxaan odhanaa halkaas ayaan kasoo bilaabanaa ilaa iyo hoos xoog baan hal mar wada jiidanaa ilaa halkaa finally-ga ayaan gaadhanaa. kadibna copy baan soo odhananaa. marka soo kobiyeysano xogaa yar screen-ka hoos loo soo jiidaa ama meelaha sare la soo qabtaa. kolkaa waxa kusoo boodaysa qaybtii taabta blogger-kaaga imo. kadib meeshan
meeshan ku paste garee meeshaasi ayaynu ku paste gareynaynaa haddaba ka article qurux badan oo dheer buu inoo sameeyey meesha efta ka yar horeysa laga yaabo in space yar ku jiro ka masax ha isleegaato okay hal mar baynu hoos u soo deganaa hal mar ka saldhe hal mar baynu hoos soo deganaa intaynu halka efta horteeda taabano si korkaasi space aan uga helno okay waxaan kusoo paste gareyn doonaa halka waxaynu soo koobiyeysan doonaa title-keena sare kadibna copy baan doonaa kadibna was freelancer-ka ayaan halkaas soo gelin doonaa si su'aashii si sax ah uga jawaabo okay su'aashan waxaan ka dhigi doonaa iyada headline ba ka dhigaya waxaan ka dhigi doonaa sub heading ba ka dhigi doonaa ama heading ba ka dhigi doonaa heading ba hadda ka dhigaya okay marka heading ka dhigay markaas su'aashaasi way dhammaystiran tahay oo si fiican ayaynu loogu diyaariyay kolka haddii san qoraalku kugu soo galo isku wada xidhan meelaha full stop taagan le meelaha ka horeysa iyo space ayaa la gashadaa tab la geliyaa ama tan lagaga boodaa kolka space bay noogu sameynaya everywhere full stop si aad u aragto mar walba waxaad meeshan ka qabanayso qaybtan hoose space baa la gashadaa ama waxa la sameeyaa dhowr tab ayaa lagu dhuftaa si aad uga durki karto hadda dhowr tab ayaan ku dhufanayaa markaasi space badan ayaan banaysanayaa si aan meeshii kor iyo hoos ugu jiidan karo hadda meeshan istaago isagoo waxba keyboardka yeelin ayaan hayar kala durkisanayaa okay everywhere saas aad habaysan doontaa wayna looga jawaabay WhatsApp freelancing-kii waxaana laga siiyey article aad u qurux badan runtii hadda waxa isweydiin leh maxaad ku xigsiinaysaa waxyaalaha aad ku xigsiinayso waad weydiin kartaa toolkan aynu isticmaalayna maskaxdaadana si caadiya normally waad garanaysaa oo waad isweydiin kartaa waayo haddiinu freelancing wixii yaa sharaxnay waxa ku xigi karta si lacag looga sameeyaa si freelancing-ka looga shaqaysan karaa waxyaalahaas isweydiinaysaa marka halkii ugu horeysay ee explorer-kii waan ku noqon karnaa iyo why-dii iyo how-dii waan soo qaadan karnaa hadda laakiin maadaamaynu garanano wixii ku xigi kara waxaan iska qorananaa subheading baa iska qorananaa was freelancing markaan qoray waxaan qoranaa how okay kan isna waxaan ka dhigayaa waxoogaa ayaan isna ka dhigayaa mid paragraph ku dhufanaysa xagga sare paragraph ku dhuftay ma waxaad ka dhigan kartaa subheading ma ka dhiganaa okay marka subheading ka dhigno isagana mawduuc ku saabsan ayaynu soo qaadananaa marka isaga waa inaad koobiyeysataa kolba kaad mawduuciisa ka hadlayso si article lagaaga sameeyo copy baan odhananaa kabacdi dib waad ugu laaban kartaa google-kan waad weydiin kartaa inta qof ee search garaysay marka qaybta toolka waxaan kusoo noqonanaa AI writer-ka soo on waxaynu tegi karnaa qaybtan ayaan weydiin karnaa meeshan ku qoranta outline ayaynu ku dhufan karnaa oo title-keen ugu horreeyay ayaan soo gelin karnaa si uu inoogu sharaxo ama inoogu sheego waxyaalaha waynu ku xigsiin karno title-keena oo ahaa what freelancing buu ahaa sumahin kii ugu horreeyay haddiinu isnidhaahno sida caadigiisa waa inoogu diyaariyo freelancing what's freelancing buu ahaa okay generate baan odhanaya waa kana san usoo saaraya what freelancing isaga waan diyaarinay number 2 waxaad diyaarin kartaa buu ku leeyahay the advantages of freelancing waxyaalaha ku diyaarinay weeyaan waxyaalaha su'aalaha adiga isweydiin lahayd ayuu soo ku diyaarinaya then disadvantages of freelancing and how to start freelancing waxyaalaha muhiimka ah ayuu ku diyaarinaya okay tips for successful freelancing kuwan waa muhiim kelmadaha noocaas kale haduu kuu soo dhigo waa la qaataa hadda waan qaadananaa kelmadahan number 2 baan kasoo bilaabanaa number 1 ku asal waa inoo qoran yahay waa soo wada koobiyeysanaysa ilaa 5ka kuwa aan ku qancin hadii ku jirin waa iska imaanaysaa kuwaad baahantaa soo koobiyeysanaysa okay blogan-keeni ayaan ku noqonanaa blogan-keeni san aan u diyaariyo waa u diyaarin kartaa san imika hadda isagu noogu diyaarina waan u diyaarsan karnaa marka su'aashan xagga dambe iyada u dhigana hadda doono oo waa de su'aal maskaxdeena ka timiday marka iyada waan iska dambeysiisan karnaa meesha ka sareysa ayaan kusoo paste garanaya inta waxooga yar xajiyo afartii uu soo siiyey waa kuwaasa kan hoos iga riix waxooga isaga hoos iga riix okay number 2 the advantage of freelancing ayaynu doonaynaa inaynu ka sameyno isagana article oo si postigu noogu qurux badnaado okay
suuna muuqaalku inoogu dheeraan waxoogaa inaan yar dedejinaya muuqata. Marka saa highlight u saarto intan toolkan ayaa laga edit gareeyaa wixii aad u baahan tahay. Dad color u baahan tahay eedaasaad ku dhufanaysaa. Dad background color inuu samayso u baahan tahay meeshaasaad ku dhufanaysaa. Inaad garanaysaan filaya iyaga isaga muuqaal kale ayaan ka samayn doonaa postiga si gaar ah ugu saabsan. Hadda meesha subheading ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa. Saddexdaba si aan hal mar uga wada dhigtay dhammaantood. Space-ka hoos aan gaadhay. Dhammaantood markaa waxaan ka dhiganayaa subheading baan ka dhiganayaa. Kolka saan uga dhigto halkan ayaan ku dhufanayaa kadibna subheading ayaan dooranayaa. Okay, saddexdii kalena waa iga dhigay subheading buu iga dhigay. Macna ma laha space-ka waad garanaysaa sida loogu dhaxaysiiyo. Number 4 kaasaan uga soo dirkay 4 ka dibadiisa tagaya kadibna tan hoos aan ku dhufanayso hoos ugu soo boodo kana soo kala saar. Kolka hadda waxa loo baahan yahay article-da ku saabsanaa si aynu soo gelino. Ka horeeya aynu soo gelinaa si uu muuqaalku inoogu dheeraanin. Kaas ayaad yar xijinaysaa. Number 2 ee ku saabsan advantage-ka lagu diyaarin karo. Okay, toolkeena ayaan ku soo laabananaa. Waxaan imananaa qaybtan ayaan imananaa. Qaybtaas ayaan ku noqonanaa markaasi free AI right-ka. Marka qaybtaas ku soo noqono meeshan waxaan ka dhiganaa saan kuu sheegay kelmadaha waan badsananaa. Meesha sarana waan xijinayaa. Start ku qoran tahay. Number 2 waliba number 2 ga waan ka reebayaa numberka si wixii uu diyaariyo numberka 2 ga ma dooni u raaco. Inta ka diyaar baan odhanayaa the advantage of freelancing. Okay, kelmadda intaasaan ka diyaarin doonaa wali generate baan odhanayaa hadda. Mid walba saas aad soo gelinaysaa. Mid walba saas aad soo gelinaysaa. Hadda waan noo sii diyaarinayaa. Marka kan saan u koobiyeysaa kana saa u koobiye kana saa u koobiye kana saa u koobiye dhammaantood waxaad weydiisaa waxaad ku soo laabataa mar walba qaybta AI-ga ee rating-ka. Kolka isaga kelmadda ka sameyn. Hadda tii labaad ayaan diyaarsanay waxay nooga sameeyay advantage-kii. Markaasi noo koobiyeysanaysaa kulligood waad koobiyeysanaysaa. Dhammaantood saas aad koobiyeysanaysaa. Copy baad dhihi kabacdi waxaad iman blog-kaaga ayaad ku soo noqon. Marka meesha tuuga ay hoosteeda ahayd oo ay ku saabsanayd kolka halkaas aan ku paste gareynaya. Hadda waad aragtaa meelaha space ku yar jiraan waad ka saaraysaa. Okay, si fiican ayuu noogu diyaariyay. Mid qurux badan ayuu noo diyaariyay waliba. Advantages-ka ayuu inoo diyaariyay mowduuc ku saabsan. Okay, waliba aad u qurux badan baa filayaa. Okay, markuu soo noogu diyaariyo tan labaad iyana saddexaadna saasi lamid ayaan sameynayaa. Afraadna saasi lamid ah si uu muuqaalku inoogu dheeraanin. Markaasi copy baan taana dhihi. Okay, hadda afartiiba way noogu jiraan. Waa article-ladii waan ka soo diyaarsanay. Number 3 waan ka diyaarsanay. Number 4 saan ku sheegayay. Marka labaad inta dambe waan ka yar boodsiiso muuqaalku si dheeraanin. Marka kan ayaad qaadaysaa mar walba saan ku sheegayay AI-ga ayaad geynaysaa qaybta writer-ka ama AI writer-kii ayaad geynaysaa. Okay, mar haddii intaan soo qornay su'aashii u dambeysay inagu aynu iskeen u samaysanay. Su'aashii u dambeysay inagu aynu iskeen u samaysanay. Marka horta numberada ka saar meeshan number 5 ay ku qoran tahay oo kale waxba number soo kordhinayaan. Kolkaas tan ayaa professional ayar noqonaysa tips for successful freelancing oo kaleeto. Marka hore numberada ku siinaya outline-ku number ahaan ay u fiican tahay inaad kala eegato. Okay, waa ka saaraya wixii number ah. Okay, wixii numberada ahna waa ka saaray. Su'aashaas u dambeysay ayay inagu si iskeen aan ugu soo darsanay. How to make money from freelancing. Marka isagii baan dib ugu celinayna oo ay weydiinayna su'aashaasi. Marka adiga si iskahaya ama maskaxdaada kugu jirto gaara waad u keeni kartaa article-ka headline-kiisa. Marka hadda copy baan odhananaa si article uu inooga qoro waxaan ku noqonanaa meeshii noo diyaarsanayd. Qaybtaas aad ku soo dhufan doontaa markaas mar walba saa u diyaarsato afartaba qaybtaas aan ku soo dhuftay. Qaybtaas aad ku soo dhufanaysaa si uu kuugu diyaariyo. Markuu kuugu soo baxo mowduucina meeshii noogu dambeysay ama copy ugu dambeeyay ayaynu sidanaa. Marka meeshan iska yar kordhiso words-ka iska yar kordhiso waxoogaa weerarka badan si uu kaaga sameeyo. Okay, meeshan ku soo koobiye markaasi. Meeshaas sawir xiji ku soo koobiye markaasi. Copy-ga sidii ugu dambeeyay. Okay, way nooga sameynaya way noo diyaarinayaa. Okay, wakan article-kii san ayuu noogu diyaariyay ama maqaalkii.
sidan ayuu inoogu diyaariyey oo uu ka diyaariyey sida lacag looga sameeyo freelancing-ka. Okay, aan dhammaantiis waan koobiyeysananaa markaasi. Intaasaan waxaa jirno waan koobiyeysananaa dhammaantiis. Xagga sare iyo xagga hooseba ama select all baad ku dhufan ama waa soo jiido waa kaas ku mid. Okay, waa soo koobiyeysanay. Okay, hadda koobiga waan soo qaadanay markaasi bloggeena ayuu kusoo laabanana xagga siin xajinana waxoogaa kadibna paste ayaan ku dhufananaa. Okay, si fiican ayuu noogu soo qoray. Kolka meelaha space-ka faraha badan uu ku jiro waad ka yar saaraysaa ama space-ka faraha badan leh haddii publish dhahno space-yaas inoo tusi doonaa. Okay, hadda waa inoo diyaarsan yahay article-keen. Maxaa ka dhiman baad filaysaa? Article-keen hadda waxaa ka dhiman sawirradii baa ka dhiman. Sawirrada hadda si aad u soo gelinaysaa free pictures. Free pictures aad u soo geliso ama photo new tab soo furo ama Google si toos u soo furo. Kadibna dhowr meelood oo free pictures ama sawirro free laga helayaa jirta. Kolka mid kamid ah ayaynu soo galno webkan la yiraahdo pixabay.com. isna waa mid ku siinaya sawirro free ah. Markaasi kan ayaynu ka soo qaadan doonaa hadda. Searching-kaas ku dhufan doonaa kadibna freelancing buu ku qori doonaa si wixii freelancing-ka ku saabsan uu inoo siiyo. Freelancing bay ku qoranaa kolka sawirradii freelancing ku saabsan ayuu siin doonaa. Okay, waa kana sawirradan inoo soo dhigay. Qaar kamid ah ayaad qaadan doontaa kulba kii ku cajabiye ayaad qaadan doontaa. Waa kana sawirradan ayuu ka hayaa wixii freelancing ku saabsan oo qofka si iskiya micnaha u shaqeysanayo oo dadkan ya tusaale looga soo qaadan dadka iskood u shaqeysanaya. Marka mid kamid ah ayaan soo download gareynayaa waliba 2 ilaa 3 ka soo download gareyso ku saabsan si la isku sii dhexgelin karo si aan sawirradu ay xagga hoose xagga sare way kaaga muuqdaan. Okay, ilaa 3 baan hadda download gareysananaa. Dhammaantood waa free sawirradani. Waa free dhammaantood sawirradu. Okay, kadib waxaad ku soo laabanaysaa markaad sawirrada soo download gareysato sawirrada blogging-ka ku soo laabo. Marka meesha u horeysa ay ku qoran tahay what freelancing meesha ka sareysa aan yar taabanana haddii space ku jirin tan dabadeed taabano ee hoos iska soo dejinayna meeshaas sawirka horeeya soo gelinayna markaasi upload from computer baan odhanayna. Sawirradii hadda waan soo geliyay sawirkii koobaad. Marka sawirkaasi uu u yar gaadho dhinacyada waxaad samayn doontaa waad yar weyneyn doontaa ama extra large ayaad ka dhigi doontaa oo meeshan ayaad ku dhufan doontaa. Meesha markaas aad ku dhufato extra large buu ku wanaagsan yahay ama large inaad ku dhufato. Hadda waxaan large space-ka meeshan ku kala dhex jirana waxoogaa waan ka yar saaraysaa hal mar space ayaan back ayaan odhanayaa. Okay, sawirkii koobaad waan soo geliyay. Kan labaad meelahan dhexe ayaa isagana soo gelinaya mid kaleeto advantages ka soo dhaaf meesha ka yar hooseysa kan meesha ka yar sareysa ayaan soo gelin doonaa. Meeshaasaan sawirka labaadna soo gelinaya. Okay, sawirradii dhammaantood waan soo geliyay. 3 sawirba waan soo geliyay meelaha dhexe mid dhexdaasaan dhigay mid xagga hoose midna xagga sare ayaan dhigay. Okay, hadda waxaan odhanaa publish si waxay ka dhiman aynu aragno. Publish ayaynu hadda odhanaa. Confirm. Okay, waa kana waa inoo sameeyay. Hadda waxaan odhanaa markaasi si aynu aragno view baan odhanaa ama website-kaaga si toos u tagi doontaa ama qaybtaas ayaad view ka odhanaa. Okay, waa kana maqaalkii noo diyaariyay. Maqaalkii sida quruxda badan ayuu noogu diyaariyay. Waliba maqaalka dheer waqtiga dheer naga qaatay xataa ayaa inoo diyaariyay. Hadda waxaan rajeynayaa inaan soo gelinay article qurux badan waqtiga doonaha naga qaatay oo aad u wanaagsan. Hadda kadib saasaan article-lada free-ga ah aad soo gashan doontaa dhammaantood insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.